maanta inxiraafaadku way badan yihiin qofka salafiga ah cid ka xorsani ma jirto dadka qaar baa maanta ku celceliya anuu cidna addoon u noqon maayo war ma cid baa idin haysataa waa qaraa'ibta zamaanka ka ugu xornimo badan waa ninka salafiga ah sababta miyaa garanaysaan dee wadaad kuma laguma khasbayo madhab laguma khasbayo manhaj inta loo soo qorqoro guri hoostii la leeyahay ma waafaqday ma jiro waxaa la leeyahay war daliilkaa raac hadduu adiga ku qancin waayaan adaa cirka roobka og markaasaa dadka ujeedooyin kali maanta waxay u dhigaan dad la haysto dadka qaarkood war cidna ma haysano kuwaanu dhallaanaan haysan inaanu waanino mooyaane oo naana war itaqu llaha fii anfusikum yaanu haysan karnaa nin walba caqligiisa iyo garaadkiisuu qabaa hadday cidi wax haysato axzaabta iyo jamaacaadka wax haysta laakiin salafiyiinta waxba ma haystaan dadka diintay u sheegaan war xornimadu waa daliilka inaad raacdo maaha xornimadu maalinba dacalkaa doonta inaad daaqdo maalinba dhinacaa doonta u dhaqaaqdo hadi laysat xorriya taasaa addoonnimo rasmi ah waayo hawaraacu waa cabdun lihawaah laakiin mutabicu isaga ayaa xor ah wuxuu ka xoroobay xumaan iyo xaq daro waxaan u xoroobay xaqa iyo diinta inuu raaco waxaan idin leeyahay hadalkii imaamu maalik maanta kolba waxbaa aawan oo kolba waxbaa cusub istiqlaaliyadda iyo waxbaadh oo waxbaxsi oo waxa weeyaan mas'alada halkaasay ila gaadhay waxaa dadka ku badan dooda noocaasa maanta laakiin dad badan oo yidhi waxbaanu baadhanaa baatil bay uga dhaceen hadday ku kaaftoomi lahaayeen intii salafkana may lumeen waxaan ku soo khatimayaa imaamu maalik imaamu daari اlhijra malik ibnu anas wuxuu yidhi awa kulamaa jaaءanaa rajulu ajdalu min rajuli tarakna ma jaءa bihi jibriilu ilى muxamadi salى اllahu عalayhi wasalam bijadali hada warma mar kastoo mid dood badan oo falsafi ah oo mutakalimi inoo yimaado aada u dood badan oo hadduu doono buxuud badanna sheeganaya mid kastoo dood badanima markuu yimaado oo ninkii hore kaba bediyey ma hadyigii malakuljibriil nebi moxamed u keenay ma kan doodiisaynu uga duugnaa oo uga tagnaa waa imaamu maalik nin baa u yimid oo yidhi unaadiruk inaan kula doodaan doonayaa maaligow qaala fain qalabtug wuxuu yidhi haddaan ka adkaada ka warran qaala tabactug wuxuu yidhi adaan ku raaci qaala fain qalabtanii haddaa adu iga adkaatana qaala tabactanii anaadi raaci buu yidhi qaala fain jaa aakhar wagalabanaa jamiican mid kale hadduu yimaado oo labadeennaba waddada inagu ridana qaala tabacnaa kaasaynu dabageli wuxuu maaliku yidhi fainii calىa habaatin min diinii fadhab ilىa shaakin milik sheekh muqbil calayhi raxmat ullah ayaa in badan kusoo halqabsan jiray wuxuu ninkii maaliku yidhi waryaa war anuu diintayda waan hubsaday oo nin maanta warwareegayo kolba geediga meel u raraya reerka oo guurguuraya ma ihi waan hubsadoo yaqiin baan ku suganahay laakiin mid sidaadoo kale aan diintiisa hubsan oo ka shakisan u tag ood isla wareegaysataan oo kolba meel iskula meeraysataan maanta malaa kelimaadka mashhuurkaa meeraysigaa ka mid ah imaamku wuxuu yidhi midaad isla meeraysataan doono laa xawla walaa quwata ila billah waxaan tilmaamayaa marka war guurguurku wuu batay maanta oo ninkaad shalay ogeyd un baad arkaysaa isagoo bari u kacay oo dabayshaday war waxba ha guurguurine sunnada ku sugnaada waxba hadalka badan iyuu idin dawikine daliilka ku kaaftooma nin hadal badan oo jadalihi waxba lama iman iktafuu bilkitaabi wasunna xasuusta hadalkii cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddii qur-aankaydi xalay uu ku fasiray falaa kafa allahu man lam yakfihi اlqur'aan walaa shafa allahu man lam yashfihi اlqur'aan allaba ma kaafiyo kaan kitaabku kaafiyin ku kaaftooma kitaabka waxaan ku soo gebagabaynayaa waxaan ka hadloon tilmaamay maa adiin ullaha bih waxaan ilaahay uga diin dhiganayay waana maqaaladaanu idin lahayn maalinta halkaa duruus aanu idinka bilownay quraabata 3 cuquud 30 sano wax ku dhow ilaa yowmina haada lam tatagayar walam tatabadel diintuna tagayur ma leh ee ku toosnaada oo ha ka baydhina wafaqa allahu ljamiic lima yuxibu wayardaa وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله